السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي waxaan leenahay kaliya laab ku soo dhawaada waa teamkii guuliyo gobonimo damaantii waan salaamayna ma sha Allah tabarakallah. caawa maxaan diisidnaa argar caawa waxa la yidin sida wax weyn weeye ya isla weynida barnaamijka isla weynida iyo doqonnimadu xagga iska soo galaan qofka inuu isla weynaado iyo qofka inuu doqon yahay oo qof eber yahay xagga iska soo galaan mise soo galaan mise kala ma wadaagaan mise kala cararaan taro soo kala cararaan mise falanqeynayna waxbay iska galay oo iska wadaagaan ana xamaa last name ka wadaag magaca dambe isku aaba dhalay ya isku aaba dhalay last name ka wadaaga qof waxaad arkaysaa isla weyn haye qab ku jiro haye isla weyninku ma aha isla weynin uu wanaag haye uu ku horseedayo haye isla weyninku wuxuu ku horseedaa mar walbaba daciifnimo iyo doqonnimo qof isla weyn haddaad aragtidna waxa weeye waa qofka dhiman horta qofaan kaamil ahayn waxbaa jira something waxbuu ku dhex qarinayaa qofkaas firdowsay habar yar waxaan arkay qof baa dhar xiranayo haye ama wuu soo labisanayaa qofka haye hankiisi iyo hamigiisuu qofkaa kusoo labistay waa run qof baa wuxuu leeyahay dharka uu xiran yahay dhar jira ma aha haye qofkii wuxuu nacsiinayaa maradii uu xirnaa haye reebaadiya tahay waxba ma taqaanid magaalada ma joogtid dadka lama haysatid dadka waad ka dambaysaa dadka waad ka maxaan ku dhahdaa ma horreysid maxaa horumarinaya horta qofkaasi ma aragta isaga reebaadiye waxaad arkaysaa qofku dhahayo wax walba waa naqaan wax walba waan garanayaa waxaan la yaabay dharkan maxaa loo sameeyey dharkan in la xirto maxaa loo kala bedelo kala kalar iyo kala dhiseen loo kala dhigay in lagu kala bedesho oo maskaxdan bini aadanka ah maalinba wax hor leh oo cusub ay aragto midda kale maalin kasta hal dhiseen inaad gashatid ma aha sax maalin waxaad dhar noocaasad gashani maalinba nooc baad gashani kaa qabani sax adaa wada soo wada iibsatay nacam dooqaaga kusoo iibsatay miyaad tuuraysaa qofkan haddayna qancin aday ku qancisay hadda waad artay baabuurta intaasoo nooca baabuur baa jirta 100 kalar baa la sameeyey maxaa kalaradan loo sameeyey dadku isku dooq ma ah sax qofba dooq buu leeyahay waxaa arkaysaa habaryarey qof baa waxaa tegayaa guri buu tegayaa haye guriga alaabbaa taalo qofka waxaa laga yaabaa idii inuu haysanin waa sax inuusan haysanin alaabtii wuxuu ku dhigan lahaa waxaa laga yaabaa in duruuftiisa ay ka tan badan tahay waa run waxaa laga yaabaa dhibkiisa inuu ka tan badan yahay waa run looma eegayo waxba laga yaabaa inuuba qofkaani adduunyaba la weyneyn oo hamigiisa baxsanayo xitaa hami kale ama seefgaraysanayo ama hami kale ku jiro uu isleeya gurigan ama maxaad ka gelinaysaa qarash meel kale aad yacni wax uu urarsanayo ama dadkiisii uu siinayo ma ogaan kartid sax taasaa xaqiiqa maxay ha oga dhigin marka qofkii aad tagtay gurigiisii maraa ee eberka ahaa markaa kasoo baxdid alaaba ma taalo waxba uma yaalo waxba muu haysan eberu ahaa maxaan ku dhahdaay qofkan waa qof oo reebaadiye ah qofkan waa qof dambeeyo haye taas cagsigeeda jiro qofaa u tagaysaa gurigiisi waa buuxa maasha Allah tabaaraka Allah aadiya banaanka markaa oga baxdid waxaa leedahay meel kasta alaabay dhigtay uu buuxi gurigiiba qofkaan u buuxiyey waa buuxa aadiya gurigii nafaas ma leh waa buuxa ilaahay u barakeeyo dheh ilaahay ha ku barakeeyo hadduu u buuxo alxamdulillaah ilaahay baa siiyey adigu maad siiyey jaanis buuna ku helay yacni waqtigeeda soo maray marka ha dhihin marka qofkan waa reebaadiyo qofkan waa qofaan reer magaal ahayn qofkan waa qof daciif ah qofkan waa qofaan jirin ha dhihin horta waxaa jirta mataqaanaa waxa fiican qofka bini aadamkiina waxa ka koro صح gurigan
aada soo gashay guri muslin ma yahay guri lagu tukado oo laga soomo laga tukado ma yahay nadaafad ma leeyo nadiif ma yahay mise guri aad ka wusito naftaada u quuri weyda inuu soo galo weeyaan haa hadduu guri oo qofkaasna markaan xaaladiisad u fiirin ma jiran yahay maxaa marka uu ku sugan yahay ma dhibaataysan yahay meelma yararoo kasoo kala daadinayo haystaa ma qof aan hagaajisan karinba xaaladiisad markaa qofkaan u fiirin ood okay laakiin qof markasta ma ahan anigu sidaan ahay in la wada ahaado ma aha bee maaha sax xaalado kasta qofkan hadduu alaabtiisa buuxsaday isaga ikhtiyaarkiisa ku buuxsada gurigiisa sax hadduu maran yahan isaga ikhtiyaarkiisa ku daayay waxaa laga yaabaa inuuna awoodin inuu awoodo inuunan rabin inuu wixiis raxo jeclaysanayo aada iyo aad waxba kama ogin ma qiyaasi karti qofkan labiska u gashan yahayna ma qiyaasi karti qofkaana qof muslimay dhar muslim ma gashan yahay ku cabir dharkiisa laakiin hadda mid baaba jirtaba qaawanaantii arma qurux noqotay oo loo arkayba inay fiican tahay qofkii dhar waaweyn haysta qof waxa loo moodi jawaabayo ama qof weyna lagu malaynaa ee waa weynahay ilaahay cimri isiiya alxamdulillahi rabbil caalamiin gabdho badan waxaa arkay xijaabka uga carara waa qalad qof weyn baa naloo malayn waa qalad oo ugu carara yacni waxyaabo dhar yaryar iyo wax wada gagaaban iyo degan iyo ugu carara aada ku yaraataan dadna qurux bay u haystaan marka waxaan horta qaawanaantu waa waxa weeyaan ani waxaan la yaaba mataqaana gabadh yaraanteedii soo asturnaan jirtay ama maxaa dhahday dhulkeedii markay joogtay asturnaan jirta markay qurbaha timida waxay dhan tuurtay dib isu jafjaftay tiiba maa markay laba cisho joogto waa kasii dari maalinta ka dambeysa kasii maryo yaraane masaas oranaysaa meel maryuhu ku yaryihiin bay ka timid talo marka dadkana ilbax waxay u maleeyaan maryaha yarbaaba ilbax loo maleey wiilashina hadda dhulkii aan arkay wiilashii xitaa surwaaladii wax yar kasii siibanayo may kuwa dabada kasii kuwa inta la gaabiyo laysku dhejiyey hor waxaan siri talow may ka jaban yihiin maadaamay ka mara yar yihiin kii hore maya ma ka qaalisan yahay ama ka qaalisan yahayba asaga la yaab rag waaweyn oo maasha allahu tabaaraka allah mudakir ah aada moodaa cumaradii ka degan yihiin jilbaha korkooda maraya tagmene taasi shaqo kuma lihi beriyaan ka nahay naqabsanina alheen allah intaasaan ku siibanay kowdhe aada iyo aad marka yacni waxaa nala gashay sheekadii ahayd qabka iyo isla weynanka iyo doqonnimadu xaggay iska soo galaan isla weynanka iyo doqonnimadu xaggay iska soo galaan waxa horta wax iska soo galaan qof kasta u fiirso oo qab ku jira maaragta hoos hadaad usii dhaadhacdid uu maran yahay xigmadiisa yar markaa qofkani wuxuu ku qarinayaa in ceebihiisa la ogaado isla weynanka bas hadal badan ma yaqaan qofkaas karti badanoo ama hadal badan qof iskaga difaaco ama hadal badan wax ku sheekeeya ma lahan nafta waxay ku qasbaysaa inuusan ka taago si loogu maleeyo hayaay qofkan waa ka carara weeyaan aada iyo aad oo ugu qariyo ama hadaladiisii iska malaayacnigu ku hadlayay ama hadal la-aantiisii ama laga garheli lahaa ama buuba cirka isgeynaya markaa saas horta way u fiicantaha qofkiio sina way ku xun tahay oo dee qofka waxaan ku wiri shaydaan baa wax ku waayay aada iyo aad horta isla weynanku wuxuu kaa saaraa wax walba oo iimaankaaga kaamilkaaga dhigi lahaa oo taamkaaga dhigi lahaa yuu kaa qasaarinayaa wuxuu kaa saarayaa dadkii iyo asxaabtii iyo ehelkii iyo qaraabadii isla weynanku wuxuu kugu dirayaa adigu dharka aada xiran tahay yuu kugu dirayaa waayo maradaad xiran tahay ku nacsiinaya wuxuu ku leeyahay maradan wax jirtaba ma aha iska siib heblaayaa wadatay iyadoo kale mid u ege heblaayo aa wadatay mid u eg iska siib marka adiga maxaa kugu diray qabkaagaa kugu diray isla weyninkaagaa kugu diraayo
isla weyninka iyo doqonnimadu meesha iska soo galaana waxay tahay in aad noqotid aadana kibrayo oo adduunyada dusheeda taagan oo dambiile ah oo haddana kibrayo. kibirka weynaha u daa, kibirka weynaha u daa. adigu aadanaa tahay, daciif baa tahay, masaakiin baa tahay, masaakiin baa nahay, waxaa nahay dad u baahan ilaahaygii raxmaan ahaa mar walbaba, dad inay kibraan maanta u baahan, adduunyada korkeeda taagan kibir ku maro ma aha maanta inaan annagu ku marno. ilaahay baryadiisa, ilaahaygii raxmaan ahaa isku xirkiisa, ilaahaygii raxmaan ahaa u toobadkeenkiisa ayaa maanta inoo bannaan. wax kaloo inoo bannaan ma laha. waxaa arkaysaa dad culimmada caynayo, waxaad arkaysaa dad madaxda caynayo, waxaad arkaysaa dad caynayo dadka fanaaniinta ah, waxaad arkaysaa dad caynayo dadka buraanburayo, waxaad arkaysaa dadka gabyayo. qof walbo qofaa ku raran. sababtuu ugu raran yahay maxay tahay? doqonnima ku jirto. waay aad ugu raran tahay qofkan ifka ilaahay baa keena, adigu maada keenin, iska daysid. midda kale doqonta dadkeeda unba ugu necabtay qofkii wax asamo ogid. marka waxaan leeyahay kibirka weynaha u daa. aadanaa tahay, cagaha dhulka dhig, cagaha dhulka saar. ilaahayga raxmaan ahaynu ka cabsano. waxaan halkaan kusoo gabagabeynaynaa insha allahu biidni illaahi raxmaan. waa janalkii Firdowso Ismaaciil janal, wuxuuna ahaa kibirka iyo doqonnimadu hadday iska soo galaan barnaamijkii ahaa een bilownay hadda. dad badan oo barnaamijyo naga soo codsaday la-aligood ayaan u bilownay. Firdowso barnaamijkan waa barnaamij codsi ku yimi, waana wadaynaa insha allahu biidni illaahi raxmaan. haddii ilaahay yidhaahdo nala socda gambalaalka furta si aad ugu horeeya aad u noqotaan. gabadh baa saas dhihi jirta YouTube suulka dhag, meesha yara subscribe-ka dhag, maasajiyada dhac, intaba noogu soo qabta. waxaa idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.